kulanti wanaagsan daawadayaal dhegeystayaal meel kasta aad joogtaan halka aad naga daawanaysaan waa warbaahinta Soomaali weyn daafaca caalamka meel kasta aad ka joogtaan maanta barnaamijkeena waxaan ku qaada dhigi doonaa taariikhdii warbaahinta Soomaali weyn isla markaana oo maanta marti noogu yahay Xuseen Cabdi Cali Sow oo ah asaasihii iyo agaasimaha warbaahinta Soomaali weyn علي سو هراي نحن أوصل هذا الشيء سومالوين اللي قال أساسي تاريخ هذا يوحي سومرتي وحرمنا إن هذا وحير نوب دامي سومالوين مركي أشقد بلاوين وحيابه نكون نبات بدنا يسوع سامي وربعين سومالوين سومالوين أرتسي عن رؤوس شيء لو يكون يكودي عن بلاوني يدو أنكو بلاوني لأنك ماركتي إنترنت كأما ويب سايت كا سن أنت وذاك أيام مرك أوه الرئيس أساسني waxaa ku soo biiray marka dad fara badan oo uu kamid yahay Same Bogat oo ay kamid tahay Ikraam oo ay kamid tahay Shukri ama Hani hadda loo yaqaano Hani Abukar website-ka marka anagoo wadno ayaa waxaan kaloo bilawnay raadiyegi oo aan ka bilawnay wadanka Sweden magaalada Gothenburg waxa kadib dan waxaan bilawnay TV-gi magaalada YouTube aan bilawnay 2004 meelahaas horumar fiican ayaa maartay ka sii gaarnay kadibna xamar aan sii wareegnay 2007 idaacadii ayaan ka furnay caqabadaha jiro marka caqabadaha jira horta waxay ahaayeen Soomaaliya horta ma aha meel degan oo wax walba marka rabto inaad bilowdo waxawey waa amaanka ayaa aad iyo aad u xumaay markaan xagga u guurnay waxay noqotay in aan maartay dhadhaxad ka noqono qolooyinka istagaalayo hadii aaleed maartay qolooyinkan al-shabaab iyo maxkamadihii iyo dawladii Cabdullaahi Yuusuf markaas jirtay iyo waxyaabo fara badan marka magaca Soomaali weyn ayaa xoogaa dadka waxawaaye ay ku wareereen macnaheedu Soomaali weyn macnaheedu anaga waxaan u daleenahay dadka Soomaaliyeed ee ku hadla oo meel walba jooga hadii ahaleed Soomaali Ethiopia hadii ahaleed Soomaali Kenya hadii ahaleed Soomaali Soomaaliya Somaliland kulli meel walba jooga ayaa macnaheedu ka wadnaa ayaa maartay matelna anagoo aan qabiil iyo kooxaysi aan maartay shaqadeena aysan ahayn inuu dhaxayso marka caqabada ugu weyn xagga amaanka ayaa dhibaato weyn naga haysatay oo aadan meel walba aadi karin oo idaacado fara badan oo jiro markaas taa muxuu qaar fara badan laga dildilaayay madaxdoodii shaqaalihii hadii aad wax yar oo laga dareemay inaad maartay wax ka sheegto isla markiiba assassination ama in lagu maartay dilo marka dhibaatadaas ugu weyn ilaa ay heer ay gaartay in idaacadeeni la qaato markii ay maxkamad ay Sheekh Shariif ku soo galay magaalada Muqdisho والشباب يوحس كل عام محمد هاي مدحويني شيخ شريف مركي أو مقدشو يمت كبعد نسي الله صار السعودية إذا عديها ولا قبصدي قلب كي على قاطي سنة كدي بدن وحابل الدلي أبو بكر كدف وهاي أجاسميه إذا عدي مركب محمد بالغيس بدن ماشي يمت أجاسمها مركي الدلي وضد شاكتي أما ضد إذا مجرم ها وعني محله ايديي اما واوجد Soomaaliya qof la dilay laba wiil ama laba qofood ayaa waxa waaye madaxa waxay ka toogteen hebel bayna carreen Allah marka yaa waaye inta badan waxa waaye waa la yaqaan dadka wax dilo oo loo saariyo waa la yaqaan inta badan waxa la dhahaa muxuu ahay waa argagixisada yaa waaye maal shabaaba maal qaacida ma koox kala ma arka soo dhaca marka kulli adiga waa la yaqaan wax dilay waa la ogyahay agaasimaha markii la dilay adiga xaqiiqad ku sugnay aniga waxaan joogay waa ku soo sugnay joogo 2011 meelahaas ahayd maxaa dareentay markii aad maqashay aad wax maaday ninaan aqaanay oo mas'uul iga ahaa idaacadda intaas oo sano maartay noo joogay oo agaasimo nooga ahay in asagana inta meesha laga qaado qalabkiisa soo arkay laga xoogay isla markiina muxuu ahay wax yar kadib la dilay asoo gurigiisii galay agaasimo markii la dilay idaacaddii waa la qaatay idaacadda sababaha loo qaatay idaacadda maxay idaacadaha sababta loo qaatay ilaa hadda waxa way calaamad su'aal ma garan karno dadkii qaatay aan ku tuhmayna markaan wacnay
oo aan weydiinay aan dhahnay maxaa u qaadateen annaga qolo aan la jirno ma jirto waxay ku leeyihiin maaragtay maya annaga ma niin buuba kolley waa la ogaaday marka dambe waxaa la yidhi waxaaba qaataa la yidhi muxuu ahaa nin ka tirsan al-shabaab wuxuu geystay la yidhi ceelbuur magaca loola baxay undulus miyaa maqana la sheegay marka kolleyda wixii qaatay ilaah baa og laakiin sida aan tuunka u yahay qoladaasiita qof ka tirsan inay qaadatay hataa isku dayin inaan wacno maaragtay madaxdoodii aan dhahno baashayna muxuu ahay waxba idinkama sheegin annaga weligeena waxba dhibaata idinma geysan waa dhaxaadan keen meel walba qalabkeena haddii idinka aan haysiin noola soo qaada dadkii qofka idinka haan idaacaddii markii la qaatay kadib Soomaaliya dawladdii Sheekh Shariif way ku xoogeysatay magaalada Muqdisho guud ahaan wada qabsatay hadda idaacadihii xor waay qorshihiina min kugu jira in idaacaddii Soomaali weyn mar kale bulshadii magaalada Muqdisho ay dib u dhageystaan aad ayaan maaragtay ugu hanweynahay in mustaqbalka dhow oo aan maaragtay idaacadeennii magaca lahayd oo maaragtay laga yaqiinay in aan Soomaaliya Muqdisho agaarkeeda aad looga dhageysan jiray in mar labaad maaragtay muxuu ahaa ka hirgasho qorsheeda waa wadnaa shatigeeda hadda muxuu ahaa mar dhow ay soo baxaysaa mar dhow ayaa maaragtay muxuu ahaa anteenadii la taagi doonaa mar dhow ayaa la maqli doonaa barnaamijyadii iyo waxyaabihii lagu yaqiinay Soomaali weyn mar dhow ayay maaragtay isu sii bedeli doontaa maqal iyo muuqaal kadibna muddo muxuu ahaa horumarka adduunka la gaaray oo ah xagga social media insha Allah mar dhow maaragtay si fiican ayaan u soo bixi doonaa laakiin tii oo aan ka wadnay Suudaan weli way socotaa ma istaagin weligeed haddii ahaa lahayd xagga maaragtay muxuu ahaa maqal iyo muuqaal 2009 markaan kusoo laabtay Suudaan ilaa hadda waan wadnaa dad fara badan oo meeshan joogo maaragtay muxuu ahaa soo tababar fara badan qaatay oo macallimiin ku noqday oo maaragtay hataa aroosyada iyo meelaha xafladaha iyo barnaamijyada weyn soo duubi karo ka shaqeey karo horumar fiican muxuu ka gaaray ayaa maaragtay ka soo baxay haddana nala joogaan idaacadda wax soo maray wariyaal professional oo ka shaqeeyo idaacadaha caalamka oo kaleeto internationalka xiriir noocay kula soo sameeyaan dadkii ka soo aflaxayeen idaacadda oo dhiirigelin iyo makeeshi aad iyo aad mar alaal markaan ismaqalno ama alaal markaan meel isku aragno ama mar alaal marka aad bay ii soo dhaweeyaan Muqdisho markaan tago oo aan maaragtay kulanno waxaa kamid ah dul yar oo kale aan isku aragnay muxuu ahaa magaalada Muqdisho aad bay igu soo maaragtay muxuu igu soo booday oo ii soo dhaweeyay marka waa farxad iyo reen iyo dad aan wada shaqeynay iyo waqti aan soo wada qaadanay iyo marka aad iyo aad maaragtay muxuu ahaa aan u farxnaa markaas oo dadkaas aan kulanno dadkii idaacadda magaca wax ka asaasay sida hadda noogu dhawaajisay Ustaad Cabdullaahi Xanti Wadaag oo kale dadka lamidka oo kale qorshihiina waa inaan dib iskugu laabataan maadaama magacan Soomaali weyn uu yahay magac aad iyo aad ugu qurux badan marka loo fiiriyo magacyada kale isticmaalaan warbaahinta arrimahaas dib iskaga wareysateen dadkii shalay kula bilaabay hawsha waan jecelnahay inay maaragtay intii nolosha ay ku harsan tahay qof walba maaragtay oo ka tirsanay ama bilaabay haddii ay maaragtay suurtagal tahay in maaragtay mar labaad aan isku soo laabano oo aan wada shaqeyno inta badan hadda waa ismaqalnaa qof hadda yiri waa ka baxay oo maca salaam yiri ma jiro qof walba haddii uu shaqadii u joojiyay oo gacanta ka hayay laakiin qalbigi weli wuu ku hayaa wuuna ka tirsan yahay qof walba oo maaragtay meel walba joogo oo Soomaali weyn qof dhahay maanta maaragtay waa aniga Soomaali weyn weli ka tirsan dhahay le maahan markii qof dhahay Soomaali weyn warniyo waa ka baxay waa cadow igu ah markii website-kii weli wuu shaqeeyaa website-ku waa shaqeeyaa somaliweyn.com somaliweyn.org labadaba waa shaqeeyaa inta badan dadku waxay ku wareeraan siyaasadda ama radios ama telefishinka ama website-ka Soomaali weyn dhinacay jiraan ayagu annaga waxaan nahay dhexdhexaad waxaan u dhaxaynaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto min qaybaha dhan oo Djibouti Soomaali galbeed meesha la dhihi jiray Somaliland Soomaalida caadi qaybta Talyaaniga iyo qaybtan maaragtay Kenya iyo Soomaalida adduunka joogto dhan qof aan maaragtay muxuu ahaa aan u dhownahay ama aan leenahay qofkaas aan xiga ma jirto magaca Soomaali weyn waa mid u dhaxeeya Soomaalida oo dhan calisow warbaahinta Soomaali weyn waxay hadda jirtaa ku dhawaad 20 sano qiyaastii intaas horumar la taaban karo 1 2 iyo 3 waxa aad u sameyseen bulshada ma jiraan horumarka aan gaarnay waxa kamid ah horta fara badan oo
oo maaragtay min bilaaw ilaa hadda wax ku bartay magac ku yeeshay ilaa hadda meelo waaweyn kaga wada shaqeeyo qaar agaasimayaal meel ka ah qaar maaragtay muxuu ahaa iyagoo aanan waxba ahayn ku soo bilaabo maaragtay muxuu ahaa yimid oo yiri kaliya wax yaraan ka bilaabayaa haddana magac fiican leh marka taasaa waxyaabo aad iyo aad u weyn oo aan soo barbaarinay bulsho oo dad fara badan wax aqoon leh hadda waxaa kala howlgala wariyaal weli caboon oo in badan dhalinyaro u badan wariyaasha in kala howlgala hadda wax ma ka xusi kartaa in kala howlgala waa ka xusi karaa muqdisho oo kale horta waxaa jooga nin la yiraahdo Axmed Xasan Xuurshe oo ilaa 12 sano maaragtay maxaa Soomaali weyn wax u qoro oo waxan wax kasta oo u jeedin meeshaas asaa wax ka qoro oo soo geliyo maalin walba soo joogo Muqdisho dhibaato wal fadhiyo oo aad iyo aad maaragtay muxuu ahaay oo nolol shaqeeyo waxaa kaloo jooga halkan ila joogo gabdho fara badan wiilal fara badan oo ila shaqeeyo Hargeysa aan Jamaal yaanan ilaawinay Jamaal oo maaragtay ilaa bilaa ilaa hadda la joogo halkan waxaa ila joogtay Ikraam oo ilaa 12 sano ila joogto waxaa kaloo hadda joogto Nimco oo ilaa 2 sano hadda ila shaqeyso Saabir adigoo hadda wareysanayo oo maaragtay intaas hadda isla joogno waxaa kaloo joogta Fahmo oo iyadana maaragtay ilaa 2 sano 3 sano camal isla joognaa Axmed oo sana aad iyo aad ugu faray dhanka maaragtay farsamada dhanka wariyanimada maaragtay muxuu ahaay aad ugu shaqeeyo dabcan hataa dhanka maaragtay farsamada aad ugu fiican tahay hadii aad dhanka videoga Ikraam ida aroosyada iyo meel walba ay maaragtay muxuu wax ka soo dudubtaa qataray ku tahay marka waa dad fara badan ayaa maaragtay muxuu ahaay halkan ila jooga dad kalena meel kale joogaan tusaale ahaan idaacadda ugu weyn af Soomaali ku hadasha radio Swedishka waxaa joogo Sama Boge oo aan 12 sano hadii aad Muqdisho hadii aad halkan hadii aad Kenya aan isla shaqeynay hataa mar ayaan waxaan sameynay journalkii waagi Soomaali ka soo bixi jiro kale xiddigta October mid u eg oo la yiraahdo Soomaali weyn ayaan muxuu ahaay soo saarnay oo aan ku qaybi jirnay Muqdisho oo aan ku qaybi jirnay Nairobi oo aan maaragtay ilaa hadda waan hayaa muxuu ahaa cadii waaga soo baxay wax walba aan ku soo qornay Soomaali weynta website-ka ay xaqas ku daabacaynay iyo faalooyin fara badan oo muxuu ahaa aan ka qori jirnay meelahaasito alisu ugu dambeyn ma jiraan Soomaali weyn dad ka caawiyay inaad horumarkaana gaartiin aad shaqeysaan oo kale hadii ahayd urur bulshada hadii ahayd dad kale Soomaali weyn ma jiraan dad isleedahay maanta ama xustaa oo magaca aad garan ugu siiyay shaqeysaan macnaheedu wax horta anaga Soomaali weyn inta badan wax oo waxay ku bilaabatay maaragtay muxuu ahaay iska tartiib ku bilaabatay qofkii aasay oo ugu weynaa Cabdullaahi Sheekh Xuseen Hanti Wadaag oo magacaasi maaragtay muxuu ahaay aad iyo aad meel ugu soo saaray helay yiri magacan u bixinayna Soomaali weyn horta ayaa aad ugu mahadcelinayaa iyo maaragtay wiilkiisa oo Sana Saciid Nabadoon oo aan wada shaqeynay sanooyinkii ugu horeeyay 2001 iyo 2002 meelahaas aan la shaqeeyay ma waqtigaas oo maaragtay internetka uusan aad iyo aad xoog u lahayn aan maaragtay muxuu ahaay real play wax la jiray oo aan taan wax yar soo cod aan soo koobiyareyn ama aan soo doobno oo aan geli jirnay oo laga dhageysan jiray maaragtay internetkaas oo la ciiska waa 2002 iyo 3 iyo maaragtay Sama Boge oo sana aad iyo aad maaragtay la soo shaqeeyay Ikraam oo iyadana aad iyo aad maaragtay 12 sano aan wada shaqeynay hadda waxaan soo joognaa taa maaragtay muxuu ahaay Soomaali weyn gacanta ku hayo oo Yunus iyo Banafusa oo hadda maaragtay muxuu ahaay oo hadii aaleed xagga niyada hadii aaleed xagga maaragtay muxuu ahaay wacyigelinta iyo xagga maaragtay support iyo xagga maaragtay dhisida iyo xagga maaragtay inay dadka la soo yimaadaan ay maaragtay muxuu la shaqeeyo wax walba marka aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa Soomaali weynta sanadahan hadda 3 sano oo maaragtay ay garab weyn naga siiyeen qoladan maaragtay oo BQS Beerkhon Yunus iyo Banafusa iyo dhalinyarada kale iyo Cumar iyo
aad iyo aad calisow ma jirtaa fariin aad u gudbi lahayd dadka ku daawanaya fariintan gudbinaya waxay tahay kolley idinka yaqaano Soomaali weyn meesha ay kaga jirto maxaa Soomaali weyn inkastoo adduunyada hadda ay social media u qabsado meel walba maanta daqiiqo walba aad heli karto oo wixii anaga oo aan mar walba noo soo raadin jiray daqiiqad ugu horeysay la soo raadin jiray hadda meel walba uu yaalo insha Allah waa dadaalina bal idinka ku xirnaada Soomaaliga nagu xirnaada waa dadaalina hawsha sii wadayna أنا ما استعجل. هذا يا مدر.